Dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray ee lagu xoreynayay dhulka Soomaali galbeed, tiro wadareedkii guud ee gaar ahaan ee ciidamada darafyada dagaalka ku jiray, iyo halbeegga tiro ee sanadihii kala gedisanaa ee ay adeegsanayeen labada dhinac. Xog aruurin iyo xaqiijin dheer oo aan sameeyay kadib ayaan idinla wadaagay xogtan. Barta aad naga daawanayso waa Muujiya Janaal. Walaal hadaad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar. Haddii muuqaalka aad ka heshay fadlan like saar. Mahadsanid. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. ugu horreyn Soomaaliya waxay xiriirkii u jirtay midowgii Soofiyeed iyo xulafadii la jirtay marka laga reebo dalka Shiinaha. Dagaalka wuxuu u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay kaga adkaadeen dagaalkii ciidamada Itoobiya. Waxaa si cad garab iyo gaashaan buuxda u siiyay Itoobiya wadamada Kuuba, Koonfurta Yemen iyo midowgii Soofiyeed oo u horboodayay quwaddii waaga dunida Ruushka. Dagaalkii xoreynta Soomaali galbeed waxa uu ahaa dagaal dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya. Haddaba sababta dagaalkani waxa uu ku bilaabmay waxa ay ahayd khilaaf ka taagnaa gobolka Soomaali galbeed. Gobolkan oo Ingiriisku 1954 si doqonnimaha u raacshay Itoobiya, waxa ay dowladii Soomaaliya ee uu horkacayay Maxamed Siyaad Barre go'aansatay in ay dib u soo ceshtaan dhulka Soomaali galbeed. Waxayna dowladii kacaanku ugu horreyn ku dabaqday dib u soo celinta dhulkaasi hab iyo hannaan siyaasi ah. waxaana dhowr mar la iska hor fadhiistay miis lagu gorfeynayay masiirka ummadda dhulkaas, balse ugu dambeyn way fashilmeen dhammaan wadahadalladii siyaasadeed ee ku saabsanaa arrinta gobolka Soomaali galbeed. Madaxweynihii waqtigaas Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka yidhi gumaysiga waxay mudnaayeen erayadii uu ku cabiray gumaysiga in lagu qoro qalin dahab ah. dadka Soomaaliya guudkiisaba wuxuu fahmay inuu qurmuun yahay gumaysigu calan kaliya oo meel ka lusha xornimo lama yiraahdo. gumaysigu wuxuu ku fadhiyaa dhaqaalaha. Intaa kadib ciidamadii Soomaaliya waxa ay weerar cad oo xoreyn ah ku qaadeen Itoobiya. Dagaalka toddobaadkii ugu horreeyay waxa ciidamada Soomaalida u suurta gashay in ay gacanta ku dhigaan bartamaha iyo koonfurta Soomaali galbeed. intii dagaalku uu socday waxa ay ciidamada Soomaaliya marba marka ka dambaysa ka soo hoynayeen guulo aad u ballaaran oo isdaba joog ah. waxay ciidamada Soomaaliya daba socdeen ciidamada Itoobiya cagta u saareen ilaa ay la gaareen goobta loo yaqaan Sidaamo. markii la gaaray Sebtembar 1977 ciidamada Soomaalida waxa ay gacanta ku dhigeen dhammaan gobolada galbeed. waxa kale oo ay qabsadeen goobo iyo magaalooyin muhiim ah oo ka baxsan gobolka Soomaali galbeed. kadib markii ciidamada Soomaaliya ay go'doomiyeen magaalada loo yaqaan Harar, waxaa dagaalka soo galay oo Itoobiya soo garab istaagay wadamadii la oran jiray midowga Soofiyeedku waxa uu taakulo dhan walba la siiyay ciidamada iyo dowladda Itoobiya. waxa kale oo Soofiyeedku ugu deeqay Itoobiya in ka badan 18,000 oo askari oo ka yimid wadanka Kuuba, taasoo keentay in ciidamadii Soomaaliya dib loo soo jabiyo laguna qasbo in ay ka baxaan gobolka. qaybtaana waxaan uga hadlaynaa tiradii ciidan iyo gaadiidka ay wateen ciidamadii Soomaaliya. tiradii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya 35,000 oo askari, 23 guuto oo infantry ah, saanadiisa ciidan 9 guuto oo taangiye ah, 9 guuto oo madaafiic ah, 4 guuto oo ciidamada cirka ah. ciidanka cirka Soomaaliyeed guud ahaan diyaaradihiisu waxay ahaayeen 52 diyaaradood, 24 ka mid ah ayaa waxay ahaayeen MiG-21. waxyaabihii saacidayay Soomaaliya ciidamada aad ayay akhlaaqdooda iyo tababarkooda u sareeyay, sidoo kale moraalkoodana aad ayuu u sareeyay. qalab ku filan ayay haysteen. ciidanka xoogga dalka wuxuu aad uga dhisnaa dhanka guutooyinka madaafiicda. madaafiicdu waxay ahayd hubka ugu muhiimsan ay wax ku weeraraan meelaha ay daciifka ka ahayd Soomaaliya. ciidamada Soomaaliya aad ayay u yaraayeen ciidamada isbahaysiga ka soo horjeeday. halka askari ee Soomaaliga ah waxaa ku soo beegmaya 12 askari oo xabasho ah. midowgii Soofiyeed ee muddo dheer xulafo la ahaa Soomaaliya soona tababaray ciidamada xoogga dalka iyo saraakiishii Soomaaliya. markaan wuu ka soo horjeedaa wuxuuna yaqaanaa dhammaan xeeladaha dagaal iyo meelaha ciidanka Soomaalida ay ka jilicsan yihiin. sidoo kale waxaa dhib ahaa hagaajinta iyo isbeer u helidda hubka iyo qalabka Soomaalidu wadatay, maadaama Ruushkii sameeyay ka soo horjeedo qorigii rasaastiisu go'do iyo wixii xumaadaba halkaas ayaa looga tagayay, looma helin isbeer. dagaalka Soomaaliya cid kula socotay ama gaashaanbuur la ahaa ma jirin. Mareykanka oo ay Soomaaliya islahayd xulufo ka dhigta madaxweynihii xilligaas ayaa diiday, wuxuuna yidhi waxayna la tahay in Soomaaliya xaq u lahayn in ay weerarto Itoobiya. saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, taliyihii guud ee ciidamada xoogga dalka Generaal Maxamed Siyaad Barre, abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Cumar Xaashi Masala, hogaankii xeeladaha iyo qorsheynta ciidanka Generaal Maxamed Cali Samatar. ila dhageyso Cali Samatar oo ka hadlaya dagaalkii ay Soomaaliya la gashay Itoobiya.
ciidankii libaaxii geeska Afrika la baxay bisad baa ka soo saaray haddaanan loo soo gudman taliyihii ciidanka cirka Soomaaliya General Ali Mataan Xaashi. asxaabay waa ku maasantihiin daawashada muuqaalka duu ku cajabiyay Lexar mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.